madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa soo saaray qoraal uu ku cadeynayo dowladda federaalka ee Soomaaliya mowqifka dowladda Somaliland ee ku aadan hadal dhawaan ka soo yeeray maamulada dalkaasi oo sheegaya in Somaliland xubno matalaya ka qayb galayaan qaab doorasho oo Soomaaliya ku heshiisay 2016 warmurtiyeedka madaxweynuhu waxa uu dhignaa sidan anigoo ku hadlaya afka dowladda Somaliland waxaan halkan ku cadeynayaa mowqifkayga ku aadan warmurtiyeedkan dhawaan ka soo baxay shir ay yeesheen qaybaha Soomaaliya kaasoo khuseeya qaabka doorashada ee dalkaasi 2016 warmurtiyeedkan Soomaaliya ee u dambeeyay waa tallaabo macno darro iyo daandaansi lagu sheeganayo laguna soo darayo Somaliland inay qayb ka tahay geedi socodka qaabka doorashada ee Soomaaliya Jamhuuriyadda Somaliland qayb kama aha Soomaaliya weligeedna ka noqon mayso hadday federaal tahay iyo hadday si kala tahayba waxaa lagama maarmaan ah in maanka lagu hayo in Somaliland oo ah dal madax bannaan uu la galay Soomaaliya heshiis midnimo sharcinimadii heshiiska laftiisu su'aali ka taagan tahay Somaliland way diiday heshiiska midnimada Somaliland iyo Soomaaliya aftidii dastuurka ee dadka laga qaaday horaantii 1961 iyagoo Somaliland si buuxda uga laalaabtay 1991 kuna cadaysay go'aankeedii ka noqoshada midnimadaasi isla markaana baaqi ku ahaanayso la soo noqoshada madax banaanideeda sida ku cad aftidii muwaadiniinta Somaliland ee 2001